asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabtayda aadka quruxda badan meel walba adduunka joogtaan waqti walba oo idiin tahay oo wanaagsan waxaan rajeynaa inaa caafimaad qabtaan dhammaantiina marka horeysa ku wada salino xabiibkeena sallallahu calayhi wasallam markii xigta waxaa idinka codsanayaa inaad subscribe saartaan channelka haddaa subscribe ku ahaan marka kusii xigtana maanta waxaa sameysanaynaa chicken dooro ama digaag sida u taqaanidba sidoo kale halkan waxaa kasoo dhaweynayaa asxaabta tiktoka kasoo aragtay videogan oo youtube ka imaaday waxaa idin leeyahay kusoo dhawaada channelka waa channelkiina subscribe ta hala iloobinina asxaabay maanta ma joogto chefka weyn aniga videoga idin sharaxi doono ma ku ficnina video dheer sharaxo laakiin waxaa rajeynayaa inaad fahmi doontaan okay waxyaalaha u baahan tahay kow waxaa u baahan tahay chicken isku dhagan chickenkaaga waxaa kusoo ridataa baaquli markaa kusoo ridatid waxaa ku kordartaa cusbo waxaana hadda isticmaalayo waa qalka xoogaa ayaa ugu shubanayaa kadibna biyo kulul ayaa ku shubaya xoogaa waxaa u daynayaa ilaa 10 daqiiqo kadibna waa kasoo miiraa sababta asaas u yeelayo ayaa waxay tahay waxaa rabaa chickenka inaad si fiican iskaga dhaqo kadibna waxaa soo qaadataa baaquli 4 xabo toon haddaa haysan bahashan toonta soo tumo budo kasoo dhigo kadibna baaquligaaga kusoo shubo cusbo ayaa kusoo darnay kadibna xawaajiga arabtida ayaa isticmaali kartaa mastama inaa isticmaashid xawaajiga aniga haysto balse aniga waxaa isticmaalay xawaajiyada chickenka lagu daro sidoo kale waxaa isticmaalay maraq digaag waxaa hadda u dambeeya kusoo shubana waxaa waaye tomato like waxaa waaye tomato powder waxaa waaye yaanyo oo powder ah kadibna waxaa kusoo miirtay liin dhanaan alaabteena hadda sidaas ayaa iskugu qasanay diinka ah macnaha waxaa diyaarsanaynaa qudaarta korka ka marin lahayn chickenka oo kana hadda wax kasta waa kusoo darsanay si fiican iskugu walwalaaqeena intuu chickenkeena biyaha noogu sii dhex jiro sidoo kale waxaa diyaarsanaynaa baradho 2 xabo baradho ayaa isticmaalay waxaa usoo jarjaraysaa si kuus ah saaid ha u yaryareynaysaa in ha u weyneynin kadibna waxaa isticmaalnay broccoli asagana soo jarjaro markaa soo jarjartid haddana waxaa isticmaalaynaa xabad karootada iyadana sidoo kale kuus yaryar ka dhig saaidna u weyneyn saaidna u yaryareyn macnaha waxaa u baahan tahay size geli karo chickenka gudihiisa sidoo kale waxaa isticmaalay barbarooni waa kan hadda chickenkeena waxaa kasoo dhex bixinay biyaha kadibna waxaa ka marinaynaa alaabtii aan isku soo dardarsanay midida saas ugu juqjuqee si macnaha u gaaro dhacaankii iyo xawaajiyada aan kor kasoo marinay si ay gudaha u galaan saas korka marka ugama marino kadibna waxaa soo qaadanaynaa qudaarteena macnaha baradhada broccoliga waxa dhan gudaha ku aruuri waxba ka teginaa ku eri kulli gudaha ku aruuri markaas kadibna waxaan soo qaadanay hadda waa almoniyada ayaa ku duuduubeena haddii kale dhacaankiisa dhan wuxuu kaa qabsanayaa foornada waxaa u geysaa 250 kor iyo hoos ka daar waxaana u sugtaa 30 ilaa 40 daqiiqo waa kana hadda ayaa kasoo bixinay maasha allah sida aadka u quruxda badan ayuu nooga soo baxay waa ujeedaan isaga dhan wuu bislaaday waxaa kaloo ujeedaan inay qudaarta gudaha ku jirtana ee bislaatay maraqna uu dhalay chickenkii maasha allah kadibna asxaabe waxaa sameynaynaa korka waxaa ka marinaynaa waxaa isku soo dardarnay soya sauce wax yar oo saliid ah haddaad haysanin soya sauce bedelkiisa waxaa isticmaali kartaa saliid wax yar oo saliid korka ka mari kadibna foornada ayaa ku celin doonaa insha allah waxaa kaloo isticmaali kartaa batarka bedelka saliidda asxaabay kadibna foornadii markaa kasoo bixinay waa kana maasha allah tabaarakallah bal fiiri guduudka iyo quruxda uu qabo chickenkan asxaabay horta maanta waxaan garaalgelinayaa chefka weyn ma joogo ayada awal si fiican waxaa idinkugu soo sharaxi jirtay laakiin igu qaata sharaxaadeyda maaragtay igu qaata hope ina fahantaan waa kana chickenkeena sida aadka qurux badan ayuu noogu soo baxay waxaa korka uga darsanaynaa hadda waa liin dhanaan kusoo miir kadibna waa kala jeexeynaa siduu bal gudaha ka noqdo ee isla aragni caraftiisa ku dhahe jikada dhan oo qabsada maasha allah waa kana saa u wada jeedaanba siduu gudaha ka noqdo quruxda baradhadii iyo wixii karootadii wixii dhan ku dhahe intay bislaadeen chickenki bislaaday macaanka iyo carafta
maasha allah siduu u kala fuqaya asaga dhan wuxuu isku noqday diin saas u kala go-aya. waxaa dhammaantiina idinkula talin lahaa inaad chickenka qaabkan aad tijaabisaan, maxaa yeelay qof xataa chicken necab gurigiina hadduu joogo qaabkan haddii aa u samaysid waa hubaal inuu ka heli doono, dhammaantiinana uu idin wada anfici doono. maanta aad ayuu u macaanaa, dhadhankiisa oo maasha allah ayuu ahaa. qudaartii iyo wixii dhan gudaha markay ku bislaadeen, chickenka asaga dhan gudaha ka bislaaday, dhadhanka uu isleeyahay macnaha geesna uusan ka ahayn dhanaan, geesna uusan ka ahayn dhadhan la-aan. marka hadda waxaa soo gaarnay guntii gabagabadii videogeeni, waxaana kor saartay waxa waaye xabad oo ceysh ah. ceyshkan sida uu sameeyey waa soo gelin doonaa insha allah. ceyshka banaanka laga soo gadanayo waxaa ka caafimaad badan ceyshka guriga lagu sameynayo. aynaw dhakhtarkaaga ma ihi, laakiin wax walba oo caafimaadkaaga ka saabsan waa inaad ka taxadartaa mar walbana. way fiican tahay in la iswaaniyo. waxaa idinka codsanayaa videogan ina subscribe-ka ka iloowin, like-ta, commentigana waa ii dhiirigelin. mahadsanidin. waxaa inoo balana videogan video ku xiga. waxaa rajeynayaa inaa fahanteen. bye.